sawirada deegaanku dhige waa sidii arago su'aalaha dhirtu ku sudhe waa sidee faanku adna gudubta soo faysatee waa sidee taladu waxaa baryahan lagu soo noqnoqotay in khayraadkii dalkeenna la isku dayo in la gurto taasoo ay guranayaan dad ajaanib ahi nasiib wanaag ciidanka booliisku isagoo arrintaa ka hortegaya wuu qabtaa waxaana ka mid ah diimamka caashabaryada dirxiga shimbiraha iyo ugaadha kala duwan harimacadaha waana markii saddexaad ee ciidanka booliisku ka soo qabto airportka muddo kooban sidan iminka idiin muuqato oo kale waxaan u sheegaynaa dadka waxaa ku hawlan inaanay alaabtaasi si hawl yar ugala bixi karin dalka waxaanu kiiskan u gudbin doonaa maxkamadda iyo xeeraaninta ku shaqada leh xayawaankana waxaanu si joogtaa ugu wareejinaynaa wasaaradda deegaanka ee ku shaqada leh tan oo keliya maahee waxa uu booliisku si joogta ah ula dagaalamaa dembiyada dhaca oo dhan nooc kasta oo ay yihiin qaar way baxsadaan hase yeeshee inta badan ciidanka booliisku gacantay ku soo dhigaan dambiilayaasha waxaan kaloo digniin u diraynaa dadka somalilandirka ah ee ajaanibka u fudeeya howlahaasi iyagana waanu soo qabanaynaa ugu dambayntii waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha casaawajillaha ee dee inoo hawlyariya hawshaas mar labaadkana taliyaha ciidanka booliisku wuxuu hambaliyo aad iyo aad u fiican u diraya dadweynaha somalilan ee sida xalaasha ah sida wanaagsan ee xorta ciidanka booliiska loo shaqeeya waxaa kaloo taliya ciidanka booliisku aad ugu hambalyeynaya ciidankii booliiska ee soo qabtay faldambiyeedkan gaar ahaan ciidanka booliiska ee airportka jooga waxaa kaloo ku daray intaa eedeysanahan iminka lasoo qabtay ee hadda hortiila taagan waa nin masri ah wuxuu caado ka dhigtay wuxuu shaqo ka dhigtay inuu xayawaanka dalkeena had iyo jeer doono inuu kala baxo dalka waana delinquent habituale sidoo qaba article 61 ee xeerka ciqaabta guud waxaa galdacwadeedkiisa lagu darayaa waana nin caadaystay oo shaqo ka dhigtay faldambiyeedka noocan kale insha allah waana laga saysan doonaa dembigaa u galay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabka somalilan maantana mar labaad waxaan la wadaagaynaa in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo kaashanaysa ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigtay caasho bari nin ajaanib oo masri watay marka runtii ma aha markii koobaad falalka noocan oo kala la qabto sidii bulshadu hore ula socotay mar waxa gacanta lagu soo qabtay 300 mid marna 200 mid marna 370 mid imkana tan 150 xabay ku dhawdahay marka runtii waad arkaysaan oo dareemaysaan sida khayraadkeena dalka looga saaray xeerka ilaalinta qiimaha iyo duurjoogtu isagoo si faahfaahsan u qeexaya duurjoogta inaan la taaban karin la haysan karin waxa weeye dalka laga saari karin waxaan waxa weeye sharciga la tiigsanaan maxkamadaha ku shuqul kale loo gudbinayaa cid walba ku hawlanba waxaan halkan ka sheegayaa runtii oo bulshada Soomaaliland u sheegaya war khayraadkeena weeye caasha baridu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa inoo dhigay dhulka waxa weeye waxyaabo inaan garanayn bay naga haysaa marka runtii waxa weeye waxa dareemaysaan in dabargoyn lagu hayo khayraadkeena markaan khayraad leenahay inay la fududlaan bulshoy waa khayraadkeena haddayna khayraadkeena insa looma gurtaan marka waxaan leenahay cid wal oo ku hawlanba xeerka ilaalinta qiimaha duurjoogta la tiigsanaya waxa weeye khayraadkeena ilaalina waxaan u mahad celinaa ciidanka booliska iyo ciidamada kala duwan oo runtii hadiya habeen baheegan ugu jira sidii khayraadkooda dalka u ilaalin lahaayeen nala dareemeena waxa weeye culayskan waxa weeye lagu hayo khayraadkeena kala duwan runtii waxa sharaf weyn oo ah haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada inaan maanta soo qabanay qayb kale oo ka mid ah xayawaankeenii oo runtii gacan baas lagu hayo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay qarankan mas'uul uga tahay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka oo dhan oo duurjoogta ku jirto iyo xayawaanadeena kale maanta waxaan qabanay qayb ka mid ah caasho bari oo runtii wasaaradduna soo ogaatay ciidamada booliska qarankuna aad iyo aad nogala hawl galeen ilaahayba mahad leh marka koowaad waxaan mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka oo dhan oo isku duuban gaar ahaan ciidamada booliska oo runtii ah gacanteeda koowaad markaan hawlaha noocan oo kala qabanayno waxa kale oo u sheegaynaa dhammaan ciddii ku hawlanka ganacsiga aan sharciga ahayn ama sharci darrada ah xayawaankeena iyo duurjoogteena ee qaranka in dawladda oo dhan ay u soo jeesatay iyadoo isku duuban
hadday ciidan tahay iyo hadday wasaaradda tahayba khaasatan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada kayskan iminka iyo ninka masriga ah waxaan filayaa dhowr jiro horena waxa weeyaan waa uu ku jira hawshan laakiin maanta ayaynu gacanta ku soo dhignay waxaa kaloo yahay xiriir fara badan dad badan oo reer Soomaaliland oo la shaqeynaya waxaan cod dheer ugu sheegaynaa ummadda reer Soomaaliland inaynu ilaashano maxay ahayd khayraadkeena ilaahayna siiyey mar labaad iyo mar saddexaadna ciidanka waa u mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa inaanu sharciga horgeyno cidda kasta oo maxay ahayd ku xaq gudubtaa in arrimaha deegaanka aad iyo aadna waa mahadsantihiin